marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada xaqiiqa TV oo idiin haya warar xaqiiqa ah inta aanan wararka guda gelin waxaan idinka codsanaynaa in aad like-ta noo saartaan sina share gareysaan si u gaarto asxaab fara badan oo danaynaysa in ay helaan warbixino ku saabsan xaaladihii u dambeeyay ee dalka Itoobiya dowlad deegaanka Soomaalida halka oo dagaalo lixaad leh ay ka socdeen labadii maalin ee ugu dambeysay ururka argagixisada al-shabaab ayaa markii ugu horeysay gudaha u galay dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya halka oo ay ka geysteen dagaalo culculus ciidamada new police ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa weerar aan local harin ku qaaday 24 saac u dambeeyay si ay u soo afjaraan ciidamadii gudaha u galay ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya al-shabaabkii gudaha u galay dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa intii ugu badnayd cagta la mariyay kuwa oo laga dhigay qayb la qabto iyo qayb qudha laga jaro 24 saac u dambeysay waxaa la xaqiijiyay in ku dhawaad 100 askari oo ka tirsan ururka al-shabaab qudha laga jaray dhamaantoodna dhulka lala simay hubkii iyo wixii ay wateen lagala wareegay ila wareegyada lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in howlgalku uu si lixaad la ku socdo lana rajaynayo in dhawaan la soo afjaro dhammaan argagixisadii isku dayday in ay gudaha u galaan dalka Itoobiya halka oo u noqon doonto cashir lama ilaawana ururka al-shabaab dambana ay isku dayi doonin ficilada ay sameeyeen ee ku aadan in ay galaan dalka Itoobiya oo aan weligood hore uusan u galin waxaan idinka codsanaynaa dhageystayaal in aad noo share gareysaan like-tana noo saartaan muuqaalkan. Assalaamu calaykum.